Assalaamu calaykum asxaabay. Maanta muuqaalkeenu wuu ka duwan yahay muuqaaladeeni hore. You ready? Yeah, I'm ready. Muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay muuqaalo naxariis iyo dareen wata, taas oo aan filayo inaad ka heli doonto. Haddaba koobkaaga shaaha soo qaado, aan bilowno. Cunugan wuxuu ku soo koray nolol bilaa qoys ah, balse markaan wuxuu u dabaaldegayaa munaasabadda dhalashadiisa markii ugu horeysay gudaha Mareykanka, gaar ahaan qoyskiisa cusub. Bal eeg farxadda ka muuqata wajigiisa isagoona cishan waayay ilinta. kadib markii ciyaarta feerku soo dhamaatay, guuleystihii ayaa u yimid dhigiisa isagoona u mahad celinaya ciyaartiisa. Waxaan dhihi karnaa waa xushmad meeshii ugu sareysay. kadib markii ay bilaamatay ciyaarta tartanka gawaarida, ayaaba horaantii waxaa isku dhacay laba gaari, laakiin mid ka mid ah tartamayaashii ayaa dareenkiisu sii waayay inuu ka tago tartamihii shirka galay, isagoona ka soo baxay gaarigiisii si uu u caawiyo dhigiisa, uuna ku guuleystay. dabcan gabadhan waxay iska duubisay aaladda TikTok. maasha Allah, way xijaaban tahay. xilli ay ku jeeday teleefankeeda ayaa qof wadada marayay u sheegay inay qurux badan tahay. bal eeg falcelinteeda. Thank you so much. I love the jilbab. I know like it means a lot. I'd love to wear one. Really? Yeah. haweeneydan uurka leh waxay rabtay inay xirato xariga kabaha, balse way awoodi weysay. waxaana ka caawiyay nin dhalinyaro ah isagoon u xiray xariga kabaha. daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa laga dhaliyay goolhayahan, wuxuuna muujiyay niyad, balse cunug yar oo soo galay ciyaarta ayaa siiyay hab si ugu laab qaboojiyo goolhayahan. darawalkan ayaa gaariga ku miirbeelay halka gaariga uu marayay wadada dhexdeeda, balse gabadhan geesiyada ah ayaa meel fog ka aragtay iyadoona ku soo oroday si ay u caawiso dhibanahan. waxayna ku guuleysatay inay joojiso gawaarida marayay wadada, waxayna ka codsatay caawimaad dadka agaarkeeda ah. waxaana isku yimid dadkii goobta si ay bal u qaboojiyaan xawaaraha gaariga. nasiib wanaag, mid ka mid ah daaqada gaariga ayaan dalcanayn, taasoo u fududeysay in mid ka mid ah dadkii gudaha u galo gaariga si uu bal u fiiriyo xaalka darawalka. ilmo ku jira gaariga carruurta ayaa ka soo taraaxay goobtii ku sugnaa. nasiib wanaag, waxa wadada marayay mootoole isagoona in badan u halgamay sidii u badbaadin lahaa cunugaas yar, wuuna ku guuleystay. bal eeg aabbahan sidii u badbaadiyay gabadhiisa xilli uu gaari dadari lahaa, isagoona naftiisa khatar u geliyay badbaadinta gabadhiisa. gabadhan kadib furinkeedii waxaa ku dhacay niyad, balse waxaa laafti geliyay faraskeedii kaasoo fahmay xaaladda ay ku jirto. cunugan 7 sano jirka ah kaasoo qaba cudurka kansarka ah ayaa la kulmay John Cena iyo Sting, waxaana ka muuqata farxad iyo reereyn. haweeneydan waxay fadhidaa meel keligeeda iyadoona ay ku beegan tahay maalinta dhalashadeeda. keligeed ayay isku sacbinaysaa, waxaana ka muuqata dareen murugo, balse waxaa si lama filaan uga qayb qaatay xuska dhalashadeeda dadkii maqaayada joogay, waxaana dareenkii murugo u bedelmay mid farxadeed. ninkan wuxuu cagta la galay wadada tareenka iyadoona ay tahay mid khatar badan, balse dadweynihii ayaa u gurmaday iyagoona sameeyay ficil soo jiidasho leh. halkaas ayuu muuqaalkeenu ku joogaa maanta. haddii aad ka heshaa ilaawin inaad la egrayso si uu u gaaro asxaab badan oo adigoo kale ah. wabilaahi tawfiiq.